Daily uses English sentences. Daily uses English sentences. Jumladooyin Ingiriis ah oo maalinlaha loo adeegsado. Si maalinlaha loo adeegsado ayaan qaadanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkan waa kulmiya private school magacaygu waa Cumar Maxamed Cali. Haddii ay tahay waqtigaadii koowaad ee halkan adigu soo boqoto, waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto kanaalka kulmiya si aad u hesho luqadda Ingiriiska meel walba aad joogtona aad nala socon karto haddii eebbe qadaro insha Allah. Haddaba saaxiib, haddii aad ku dhiban tahay luqadda Ingiriiska barashadeeda inaad nala soo xiriirto waa inoo muhiim insha Allah, anagoo kugu caawin doono dhammaan buugaag aan hayno. 9 buug ayaan u haynaa ardayda Soomaaliyeed aan u diyaarinay. waliba ardaygu wuxuu heli doonaa waliba waxaan ardaydu kuwa u safarka badan ee dalkaasi jooga dibadaha jooga haddana aanan waqti ku soo xaadiri karin online educationka mise waxbarashada online-ka aanan waqti u hayn, iyaguna waxaan u haynaa buugaag inaan u duubnay oo buugaagtaas ardaygu markuu iibsado isaga waqti u samaysan karo, kadibna uu qaadan karo casharada, uu ku practice gareyn karo, uu akhrin karo, meel uu iska saari karo luqadda Ingiriiska. 9 buug haddaad qaadato aad bay ku caawin doonaan haddii aad tahay qof isaguna jooga markaasi meesha la yiraahdo marka dibadda jooga. insha Allah soo dhawo. marka waxaan qaadanaynaa maanta daily use English sentences. waa jumladooyin si maalinle ah loo adeegsado. soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay jumlada koowaad haddaan ka bilaabo waxaan leedahay clean the windows. Clean the windows. daaqadaha nadiifi. Clean nadiifi the windows. daaqadaha. qof baad u diraysaa shaqada daaqadaha inuu nadiifiyo, waxaad leedahay clean the windows. nadiifi daaqadaha. jumlada labaad waxa weeyaan mop the floor. Mop the floor. xaaq macnaha dhulka xaaq. dhulka xaaq. mop the floor. dhulka xaaq ayaa markaa waxa weeyaan dhulka qofka inuu xaaqad ku amraysaa. mop the floor. xaaq dhulka. nadiif dhulka. okay, midda saddexaad sweep outside. Sweep outside. dibadda xaaq macnaha banaanka xaaq. meesha banaankaad u diraysaa shaqo banaan ah oo guriga banaankiisa oo kale, marka waxaa leedahay sweep outside. dibaddana xaaq. dibaddana xaaq. jumlada afraad iron clothes. Iron clothes. Iron clothes waa maxay? dharka feerada dharka in la feereeyo weeyaan. marka iron clothes dharka feere, qof baad u diraysaa shaqadii. iron the clothes. okay, iron clothes dharka feere. okay, jumlada shanaad waxa weeyaan do the dishes. Do the dishes. Do the dishes waa maxay? waa saxamanka nadiifi. saxamanka dhaq macnaha saxamanka samee oo nadiifi. marka do the dishes saxamanka nadiifi. saxamanka wax lagu cuno ayaa la yiraahdaa do the dishes. saxamanka nadiifi. okay, oo dhaq. jumlada lixaad dry the dishes. Dry the dishes oo ah saxamanka marka qalaji macnaha saxamanku qalaji inay marka wax qoyaan weeyaan biiba leh inuu qalajiyo ayaa marka aad amraysaa. waxa weeyaan dry the dishes. saxamanka qalaji. jumlada toddobaad waxa weeyaan vacuum the floor. Vacuum the floor. Vacuum the floor oo ah dhulka inaad adigu waxyaabaha dadka dooraya iyo waxaad aad ka nadiifiso ayaa la yiraahdaa iyaduna dhulka macnaha nadiif ee iyaduna ayaa la mid tahay. jumlada saddexaad waxa weeyaan take out the garbage. Take out the garbage. Take out the garbage. ka saar qashinka. take out ka saar the garbage. qashinka ka saar. meel baad u diraysaa oo qashin ah, qof aad u diraysaa, qofkii waxaad leedahay take out the garbage. war meesha qashinka ka saar. okay, jumlada sagaalaad waxa weeyaan to make the bed. To make the bed. sariirta nadiifi macnaha sariirta hagaaji. sariirta in la jiifan rabo in la hagaajiyo waxaa la yiraahdaa marka to make the bed. hagaaji sariirta. okay, sariirta in la hagaajiyo wey. to make the bed. sariirta hagaajinteeda oo in la hagaajiyo ah. jumlada tobanaad waxa weeyaan to prepare a meal. To prepare a meal oo ah raashin diyaarin. raashin diyaarinta macnaha diyaari raashinka oo kale qofka magac leedahay diyaari raashinka. marka to prepare a meal waa raashin diyaarintii. okay, jumlada 11 waxa weeyaan to set the table. To set the table oo ah dhig miiska. miiska dhigitaankiisa miiska in la dhigo. marka to set the table waa dhig miiska dhig. miiska dhig weeyaan. miiska in wax lagu cun rabo ayaa laga yaabaa in la dhigaa loo baahan Soomaan. to set the table miiska dhig. marka su'aasha ama jumlada 12 waxa weeyaan to shop.
to shop oo ah soo dukaamay macnaha wax soo iibi dukaamays qofka marka uu aadayo to shop si waanka waa loo soo dukaamaysto ayaa qofka waxa leedahay to shop oo kale soo dukaamay macnaha wax soo gad su'aasha ama jumlada to 13 waxa weeyaan to do the washing to do the washing to do the washing and wax dhaq in wax la dhaqo to do the washing in wax la dhaqo ay tahay in alaabihi la iska dhaqo dharka la iska dhaqo marka ayaa waxa la yiraahdaa iyaduna to do the washing alaabta in marka inaad dhaqdo ayaa marka loo baahan yahay marka halkaas ay soo afbeeray saaxiibayaal jumladahan inay ku caawin doonaan waan filayaa saaxiibkaaga u baahan inaad si gaarsiiso waa ku muhiim dhamaanteena waxaan idinku tagay sida iyo nabadgelyo